Photoshop 2021 boolarka qurxoon, kaararka invitationska, infographics-ka, logooyinka, mock-upska iyo sawirada aysan marnaba garaadka suuraysan waxaa inta badan suurageliya Photoshop. Photoshopka ma laha in xadidan, hadba dhisaanka la suuraysto ayaa lagu samayn karaa. Haddii aadan aqaanin kombiyuutarka aasaaskiisa oo aad doonayso barashada Photoshopka iyo haddii aad wax uun aad ka fahamsan tahay intaba, waxaan idinkugu talagalay tusmooyin dhammaystiran oo hadba qayba aadna ku baran karto Photoshopka min bilow ilaa heer sare. insha Allah waxaan ka bilaabanaa marka hore sida Photoshopka loogu shubto kombiyuutarka. Marka xigta waxaan isla fahmi doonaa wajiga hore ee Photoshopka, the interface of Photoshop, fahanka Photoshop tools and properties, Photoshop layers, Photoshop panels, image extensions ama noocyada sawirada, saving projects iyo include. ugu dambeyn waxaan isla sameynaynaa projectyo dhowr oo ay ka mid yihiin board design, invitation design, logo design, social media panels, 3D text, GIF image iyo animation. Photoshop 2021 linkigiisa ka fiiri fiidiyoga qaybtiisa kore ama hoose, sidoo kale cashar kasto linkigiisa isagoo projectyaana halka kala soo daawasho wacan. ugu horeyn waxaan doonayaa inaan idinla wadaago qaabka loo soo download garaysto Photoshop 2021. dabcan laba qaab waa samayn kartaa. inaad tagto shirkadda Adobe website-ka ee leedahay oo aad halkaas ka soo download garaysato, ama in aad tagto website-yada karaaga bixiyo, application-nada karaaga ah website-yada bixiyo mid ka mid ah inaad ka soo download garaysato isaga oo free ah application-kaasito. Cracking application waxay la mid tahay application-ka fileska uu ku shaqeeyo oo la jabsado, taasoo keenta in application-ka si free ah uu shaqeeyo, sidoo kale koobiyo fara badan laga bixin karo. marba haddii kombiyuutarkaaga xogo fara badan oo muhiim ah ku jiraan, sidoo kale haddii jeerna aad online tahay, waxaan ku leeyahay kuma haboono marnaba in aad application crack ah kombiyuutarkaaga aad ku shubto. waxaad ku raadaysaa getintopc.com, enter. website-kan wuxuu soo bandhigayaa application fara badan oo ay leeyihiin shirkado fara badan kuwaasoo uu ku sameeyay crack. marka annaga waxaan doonaynaa inaan soo download garaysano Adobe Photoshop. waxaa qoraysaa Photoshop, enter. dabcan Adobe Photoshop 2021 free download, si free ah ku soo download garayso. waxaa ku leedahay click on, qaybta hoose imow, wuxuu ku soo bixinayaa download. waxaa ku dhufanaysaa download. dabcan application-ka wuxuu ku jiraa WinRAR. WinRAR-kaasna wuxuu leeyahay password-kiisana waa 123. dabcan haddii WinRAR uusan kugu jirin, waxaad ka soo download garaysan kartaa fiidiyoga aad daawanayso qaybtiisa kore ama hoose. waxaa leedahay download. markuu kuu soo dhaco, waxaad tegaysaa folderka uu ku jiro application-ka. saa ujeedaan, this is the WinRAR. application-ka wuxuu ku jiraa this WinRAR. marka si aad u hesho waa inuu kombiyuutarkaaga kugu jiro WinRAR. kadib waxaa leedahay right click, extract here. kadib wuxuu ku soo bixinaa folderka waxaa ku siinaysaa double click. kadib wuxuu ku soo saaraa yes or no. waxaa leedahay yes. intaa kadibna waxaa sugaysaa inta setup-ka uu kugu shubayo application-ka kombiyuutarkaaga. intaa wixii ka dambeeyo waxaad imaanaysaa desktop-ka. waxaad ka raadinaysaa application-ka aad ku shubatay shortcut-kiisa. haddii aad ka weyso, waxaad samayn kartaa taska baad tagaysaa qaybta search-ka ah, waxaad ku qoraysaa Photoshop. double click. qaybta haatan idin muuqato waa wajahada hore uu la falgalo qofka isticmaalaha, the interface Allah. ugu dhan waxaan isku daynaa inaan wax ka fahanno shortcuts-ka uu leeyahay Photoshop-ka. dabcan Photoshop-ka shortcuts-ka uu leeyahay waxaad samayn kartaa inaad wax ku soo darto shortcuts-ka hore jiray inaad wax ka bedesho, intaba waa kuu suuragal. marka si aan wax uga ogaano shortcuts-ka Photoshop-ka uu leeyahay, waxaan leenahay Alt Shift Control K.
isla markiiba micnaha waxaa lagu soo bandhigayaa qayb kasta oo Photoshopka ka mid ah iyo shortcutska ay leedahay. ugu horeeya hadda file. Marka fileka markaad tagno dabcan marka aad new file cusub markaad sameynaysid waxaa lagu soo bandhigayaa shortcutkiisa. waxaa leedahay control N, mid kale markaa furayso waxaa leedahay control O. dabcan haddii aad doonayso shortcutkan inaad wax ka bedesho waxaa leedahay double click. dabcan midka aad doonayso ama aad rabto inaad ku bedesho ayaad ku qoraysaa. Okay, marka haddii aan doonayo inaan new document inaan sameyno ama new file inaan sameyno, options fara badan aan horyaalo. waxaa ka mid ah in fileka ama sawirka aan doonayo inaan Adobe Photoshop aan ku hagaajino inaan soo sameyno drag and drop inaan sameyno. ama sidoo kale waxaan kaloo sameyn karnaa inaan dhahno create new. buttonkaasi ay ku qoran tahay create new inaan ku dhufano. ama sidoo kale waxaa kaloo inoo badan inaan dhahno file inaan dhahno kadib new inaan dhahno. waxaa kaloo sameyn karnaa control N inaan dhahno. dabcan wuxuu leeyahay shortcut. waxaan kaloo sameyn karnaa inaan dhahno control N. ama sidoo kale haddii aan doonayno design ama sawir inaan Photoshopka soo gelino waxaan dhihi karnaa open aan dhihi karnaa. ama sidoo kale waxaan dhihi karnaa control O ama file kadibna open aan dhihi karnaa. marka waxaan isku daynaa new document inaan sameyno. waxaan dhahnaa file kadibna new. dabcan Photoshop marka wuxuu kusoo bandhigaysaa custom the default size. wuxuu kusoo bandhigaysaa the default size. sidoo kale qaybo kale fara badan ay kusoo bandhigaysaa oo ay ka mid tahay web size, micnaha size-yada webka ay leeyihiin, mobileka micnaha size-yadooda. marka size-ka adiga aad doonayso oo markaa kugu habboon oo aad ku shaqeyn karto ayaad soo dooran kartaa. ama sidoo kale waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa recent kadib fileka aad doonayso inaad ku shaqeyso ayaad size-ka adiga aad doonayso aad u sameysanay. width-ga tusaale ahaan waxaan ka dhiganaa 150. height-ka oo kale hanoo ahaado 50. sidoo kale orientation ma horizontal u ahaana ama vertical u ahaana. marka hadda qaybta hadda noo tagan waxaa waa active-ka noo ah horizontal hanoo ahaado. resolution filekan marka aan ku shaqeynayno resolutionkiisa waa inuu ahaado 300. backgroundkiisa waxaan ka dhignaa white. this is the background white sa ujeedaan. okay, intaa wixii ka dambeeya marka waxaan leenahay create document. marka documentkaaga marka kuu soo bandhigo waxaad sameyn kartaa inaad save gareyso. marka aad doonayso inaad save gareyso waxaad dhihi kartaa shift control S. ugu horeyn inta aan save gareyn waxaan ka qaadanaynaa logga. waxaan tegaynaa layer kadib logga korkiisa waxaan leenahay click. automatic wuxuu uga qaadmayaa. intaa kadib waxaan leenahay shift control S. waxaan leenahay save on the computer. nagu save gareey computerkeena. marka qaybta kale waxaa waaye ku save gareey Adobe storage ku save gareey. marka anaga Adobe storage ma rabno. waxaan rabnaa inaan computerkeena ku save gareysano. waxaan leenahay save on the computer. kadib wuxuu ku soo bandhigayaa default extension. extensionka micnaha default-ga ah ee leedahay Photoshopka BSB. BSB it means filekan ugu save gareey as project ahaan. dabcan filekan markii project aan lagu save gareeyo hadhow dambe marka waxaa suurtagal ku ah projectiga isaga inaad double click inaad aado isla markiiba meeshii marka hore uu ku maray inaad kasii wadato. marka ugu horeyn waxaan isku daynaa inaan ku save gareyno as project. waxaan leenahay test enter. okay, markii xigto waxaan isku daynaa inaan ku save gareyno as JPG. JPG and PNG labadaas extension aan isku daynaa inaan ku save gareyno. dabcan waa laba extension inta badan oo sawirada loo isticmaalo. JPG oo kale markii la isticmaalayo inta badan fileka loo isticmaalo wuxuu yeeshaa background. PNG markii la isticmaalayo fileka loo isticmaalna inta badan background ma yeeshto. backgroundkiisu wuxuu noqdaa hadba goobtii la geeyo. inta aan JPG iyo PNG ba aan ku save gareynin waxaan isku daynaa marka hore in aan isticmaalno toolka
inuu suurtagelinaya inaan texti ku qorno documentigeena. This tool. Kadib toolkan wuxuu leeyahay options oo qaybtan kore ah. This is the size. Size-ka marka wuxuu noo joogaa 72. This is the background. Background-kan waxaa waaye black. marka waxaan isku dayna inaan ku qorno waxaan leenahay AMC qaybta kore waxaan leenahay okay filarta kore haddii micnaha size-ka aad doonayso haddii aad farta ka weyso waxaan leedahay Control T kadib drag aan leedahay soo jeedaysaa okay marka drag ka soo sameeyso waxaan leedahay enter kadib waxaa imaataa background layer click on background layer delete button ku dhufo ama waxaa kaloo samayn kartaa in this delete icon inaan ku dhufato waxaa leedahay delete layer yes enter there. Move tool active gray text click on ku dheh kadib drag gees u jiid projectii aad horay u save gareysay si wixii micnaha gadaal aad uga dartay aad haddana update ugu dhahdo waxaa leedahay Control S si aan JPG and PNG aan ugu save gareyno waxaa leedahay shift Control S kadib waxaad dooranaysaa save your computer waxaan dooranaynaa as JPG micnaha JPG ahaan lagu save gareeyo waxaa ku qoran testi waxaa leenahay enter large or small okay dabcan had iyo jeer waxay ku xiran tahay resolution-ka uu noqonayo documentigaaga micnaha haddii size-ka uu weyn yahay resolution-kaaga uu fiicnaanaa okay waxaan ka dhignay maximum okay waxaan leenahay file save as or shift Control S save on my computer tukaan marka waxaan dooranaynaa JPG maahan waxaan dooranaynaa PNG JPG waxaan dooranaynaa PNG marka PNG saan hore idinkugu sheegay documenti kastoo micnaha PNG laga dhigo ama sawir kastoo micnaha PNG noqdo background-kiisu waa hadba meesha uu joogo hadba meesha uu yaalo ayaa background u ah waxaan leenahay marka save size-ka hadduu medium iyo small waxyaaba noocaas uu ku yahay ka dhig large si micnaha documentiga markaas aad ku shaqeynayso aad save gareysay resolution-kiisu uu noqdo resolution aad u wanaagsan kadib waxaa la okay marka waxaan tegaynaa saddexdii file aan save gareynay midna uu ahaa projectii mid kalena uu ahaa PNG mid kalena waa JPG dabcan these are the files oo aan save gareynay dabcan kana the file kan waxa ku qoran testi waxaan ku save gareynay as JPG kana PNG sidoo kale this is the project file marka dabcan cashirkeena haatan intaas ayaan ku soo afmeerinaa cashirkii xigir insha Allah waxaan isku imaan doonaa workspace Photoshop workspace wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh